haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baadhista waxaa inoo haya Haaruun Macruuf. saraakiisha caafimaadka adduunku waxay soo tabinayaan in xanuunka covid-19 uu hoos u sii dhacayo qaaradda Afrika inkastoo kiisas badan ay weli soo tabinayaan waddamada qaarkood kuwana ay tiraduba kor u kacday. saraakiishu waxay sheegayaan in hoos u dhacu uu gaarayo in ka badan 20%. kiisaska laga helay qaaradda Afrika ayaa ka badan 1,200,000 oo kiis, kuwaasi oo kala badh laga helay dalka Koonfur Afrika. guud ahaan dhimashadu waxay ka badan tahay 30,000 oo qof qaaradda Afrika. xanuunkan waxaa qaaradda laga helay 25 bishii Febraayo ee sanadkan, iyadoo kiiskii ugu horreeyay rasmiga laga diiwaan geliyey dalka Algeria. Soomaaliyana waxaa kiiskii ugu horreeyay laga helay 16 Maarso ee sanadkan. haddaba wadamada uu sida weyn hoos ugu dhacay xanuunkani waxaa ka mid ah Soomaaliya. Soomaaliya waxaa cudurkan laga baadhay tiro aad u yar oo ku dhow 13,000 oo qof. waxaa sidoo kale laga diiwaan geliyey mid ka mid ah dhimashada ugu yar qaaradda Afrika oo ah in ka yar 100 qof. inkastoo haddana Soomaaliya si guud dadweynaha aan loo gaarsiinin baaritaanka cudurka sida wadamada qaar ay sameeyeen. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waa madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya. The Ministry of Health and Human Services of Federal Government of Somalia has reported over 3,200 cases, including 93 associated deaths. waxa uu yidhi wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in ka badan 3,500 oo kiis iyo 93 dhimasho ah. 5 ilaa 6 usbuuc ee ugu dambeysay ayuu yidhi si joogto ah ayay kiisaska iyo dhimashadu hoos ugu dhacayeen. xilligan kiisaska laga baadho cudurka waxaa laga helay ayuu yidhi wax ka yar 5%. waxa uu yidhi waxaan aragnay ilaa toddobaadkii saddexaad ee bishii Juun inay aad hoos ugu dhaceen kiisaska iyo weliba dadka laga helayo tirooyinka la baadho. waana calaamad wanaagsan ayuu yidhi taasi. inkastoo tirada dadka laga helayo cudurkan ay hoos aad ugu dhacday Soomaaliya, haddana waxaa soo kordhaya dadka laga baadhayo oo ilaa haatan 300 oo qof maalintii laga baadho, kuwaasi oo u badan dadka safraya iyo qayb yar oo ka mid ah dadka cisbitaalada yimaada. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxaan weydiiyey in Soomaaliya ay sayniska adeegsatay si ay ula dagaalanto cudurkan. I would say Somalia has followed our advices. The way the country has implemented the public health interventions, those were based on science, those were based on... waxa uu yidhi waxaan dhihi lahaa Soomaaliya waxay raacday talooyinkeenii. qaabka waddanku u hirgeliyay tallaabooyinkii caafimaad waxay ku salaysnaayeen saynis iyo caddaymo. waxaan si joogto ah talooyin caafimaad u siinaynaa dowladda Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada baaritaanka, dabagalka dadka laga shakiyo iyo in qofku isa sooco ama iskarantiilo. kama dhigna ayuu yidhi in dhammaan tallaabooyinka aan soo jeedinay ay wada shaqeeyeen, laakiin buu yidhi marna ma aynaan arkin dowladda oo ka xishoonaysa inay dadka siiso talooyinka sayniska ku salaysan. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaludiin waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirtii ugu horreysay ee wasaaradda caafimaadka ee gacanta ku dhigtay la dagaalanka cudurkan COVID-19. waxaan weydiiyey wakhtiga uu isleeyahay cudurkani waa laga adkaan karaa. arrintaas arrin laga hadda uga jawaabi karno waraysigan maaha. oo anaga waxaa dhici karta inuu xanuunka jiro aan weli gaarin anaga awoodaan maxaa leedaha ku hubino ama aan ku wada xaqiijino. waxaan isleeyahay waqti wuu jiraya coronavirus, waxaana u baahannahay shayga keliya lagu xaqiijin karo waxa waaye su-aashaada jawaabteedana lagu heli karo waxa waaye in cilmi baaris rasmi ah laga sameeyo ayadoo la baaray difaaca jirka dadka, ayadoo assessment ama qiimeyn lagu sameynayo ilaa intuu cudurku gaaray, meeqa difaac ka samaysatay, siduu dadka u saameeyey. study noocaas oo hadda hay-adda caafimaadka adduunka aan wada bilownay ayaa ina siin kara jawaab ah horta xaaladda rasmigan COVID-19 kaga sugannahay, waqtigaan isleenahay waa ka bixi karnaa, iyo immunity-ga ama iska caab difaaca jirka dadkeenu intuu la egyahay uu jeermiskan ama viruskan ka qabo. inkastoo Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha caqabadaha ugu waaweyn ee caafimaad ay ka jiraan dunida, haddana saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen inaysan xilligan jirin guul ay u dabaaldegayaan, inkastoo haddana ay ku faanayaan tallaabooyinka ay qaadeen. waa kan mar kale Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik, madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya. Very difficult to say what was the key to success, because we don't want to celebrate the success at this stage, as we feel the outbreak is far from over.
No one is safe until everyone is safe in this country. This means what we are seeing now, a dip in the number of... waxa uu yidhi aad bay u adag tahay in la sheego waxa furaha u ahaa guusha sababtoo ah xilligan ma doonayno inaan guul u dabaaldegno. waxaan aaminsannahay ayuu yidhi in xanuunkan aysan fari ka qornayn inuu baxo. ma jiro ayuu yidhi qof ka nabdoon ilaa qof kasta laga waayo. waxaan hadda u jeednaa ayuu yidhi waa hoosu dhac, laakiin markii waddanku uu furfurmo xayiraadahana la qaado xuduuduhuna ay isku furmaan waxaa isku soconaya dadka isaga gooshaya caalamka. markaas waxaa jiraysa cabsi ah inay mar kale tirada kiisasku kor u kacaan. waxaa jira ayuu yidhi meelo aynaan weli tegi karin waddanka, dhab ahaanna ma ogin ayuu yidhi in fayrasku uu ku dhex wareegayo goobahaasi. marka xataa marka la fiiriyo aqoonta sayniska waxaa muuqata inay suurtagal tahay in xanuunkani uu soo laba kacleeyo. dhammaan waddamada caalamka ee aan aragnay ayuu yidhi xanuunkani waa uu soo laba kacleeyey 2 ilaa 6 usbuuc kadib. waxaan aaminsannahay ayuu yidhi inay muhiim tahay in la eego sida ay xaaladdu noqon doonto 2 ilaa 6 usbuuc ee soo socota. hase yeeshee dhinaca kale waxaa jirta ayuu yidhi waxyaabo lagu faani karo. tan ugu horraysa dowladdu waxay diiradda saartay ayuu yidhi maaraynta xanuunka, taasi oo macnaheedu yahay baaritaanku marna ma istaagin. mid ka mid a waxyaabaha muhiimka u ahaa in tirada kiisasku ay hoos u dhacaan waxa weeye ayuu yidhi shaqaalaha caafimaadka bulshada oo badankoodu dumar yihiin oo toddobaadkiiba 30,000 ilaa 40,000 oo guri booqanayay iyagoo la socodsiinaya dadka fariimaha caafimaad ee asaasiga ah. shaqaalahani waxay ogaanayeen ayuu yidhi in dadka looga shakiyo laga baadho xanuunka iyo inay iskarantiilaan. WHO iyo dowladda Soomaaliya waxay xilligan wadaan daraasado kala duwan oo ku saabsan heerka adkaysiga dadka Soomaalida ee cudurkan, iyadoo baaritaan lagu samaynayo dhiigga dadka, iyo daraasad labaad oo ku saabsan sababta 10% dadka uu ku dhacay cudurkani oo ah xirfadlayaasha caafimaadka ay xanuunkani u qaadeen. dhinaca dhimashada inkastoo Soomaaliya ay diiwaan gelisay rasmi ahaan 93 qof oo kaliya, haddana khubarada iyo saraakiisha deegaanada kala duwan waxay aaminsan yihiin in tiradu ay aad uga badan tahay intaasi. hase yeeshee ma hayaan xog ay barbar dhigaan dhimashada la diiwaan geliya sanadkan oo ku salaysan waraysiyada qoysaska laga baxay iyo warbixinaha ka imaanaya qabuuraha, sida uu sharaxayo Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed. dadka dowladda u diiwaan gashan 93 qof ee geeriyootay waxa waaye dadka inta xanuunka laga helay PCR confirm ku noqday kadib inta la dabagalay ee geeriyooday. waxaan si tuhunsannahay oo jirtay in dad badan oo coronavirus u dhintay inaan xogtooda helin annaga. waxaan wasaaradda caafimaadka ay laamgareysay in verbal autopsy wax lagu sameeyo oo dib loo baaro dadka geeriyooday, asbaabtay u geeriyoodeen, la wareysto faamilyadoodii. shaqaalaha caafimaadkii ka shaqeeya dowladaha hoose gaar ahaan gobolka Banaadir waa loo tababaray, laakiin weli xogtaa ma aysan imaanin oo caqabada daahitaanka ah ayaa yimid. laakiin hypothesis waxaa jira aan aaminsannahay in tirada dhimashada ay aad u korortay, u badatay bilihii March, April, May iyo June, 4 bil oo xogta aan helnay ee aan ka helnay qabuuraha dadka geeriyooday iyo isbitaalada iyo MCA-jada iyo xarumaha degmooyinka qaarkood waxay ina muujinayeen aad u kacday oo ay mararka qaar ka badneyd 2 jibaar intii ay ahayd bishii January, December iyo November ee 2019. laakiin tirada badnidaas dadka oo garaafka aadka u kacay lagu qiyaasay haddii la isku barbar dhigo 2 bil ee ugu dambeysay 2019 iyo bilihii March iyo April iyo May noqonaysa 2 jibaar ama 3 jibaar ah. ma caddayn karna inay coronavirus tahay, laakiin waxay xoojinaysaa in dhimashadaas ay la xiriirtay ee ahayd la xiriirta coronavirus. way jirtaa fursadda weli aan verbal autopsy ku samayn karno oo haddii mas-uuliyaddaas laisla fahmo oo ayna nala gartaan hay-adaha caafimaadka ay la gartaan hay-adaha dowladaha hoose ka shaqeeya ee maamul goboleedyada ay ka mid yihiin. marka tusaale isiin dadka sidaad sheegtay verbal autopsiga ama waraysiga dadkaad waraysateen oo heladoodu dhinteen waxay idiin sheegeen heerkay ahayd bilihii January iyo February iyo bilihii ku xigay 3 bilood ku xigtay. waxaan wareysanayo waxa waaye 2 si waaye. mid waxaa la ogaanayay tirada dhimashada ay tegaysay xawaalada sambalka laga qaatay muunada laga qaatay. midna dadka geeriyooday ayaa waxaa maadaama markii ay tagaan qubuuraha qofka la ogaanayo nambarkii waxaa dib loo wacay familigii dadka ay ka dhinteen, iyadoo meelaha qaarkood qubuuraha qaar diiwaan uu yaalo dadka laga diiwaan geliyo, qubuuraha qaarna laga dabagelayo dadkii xabaalaha u qoday
nambarka taleefonka ay lacagta u tuureen la weydiinayo marka asbaabta qofka uu dhintay. dadka marka xanuunada neefqabatinka ah inta qofku qandhaday qufacay naqaska ku xirmay u geeriyooday ama asbaabtaas la xiriirta arrimaha naqaska ah iyo geeri degdeg ah oo maalin ama 2 maalin qof xanuunsaday ee horey ka geeriyooday waxay badnayd oo ay aad u badnayd bilihii March, April, May. sidoo kale maxaa lahay ma jirin mashaakil weyn oo si safmar ah dadka u laayay aan ka ahayn coronavirus ku xanuunka jiray. laakiin haddana qubuuraha midalan qubuuraha loo yaqaan qubuuraha barakaad oo kale numberka si xawli ah ayuu u kordhay. haddii maalinkii lagu aasi jiray bilihii January iyo February 10 ilaa 15 qof, bilahan dhexe waxaa lagu aasayay maalinkii tiro ka badan intaas oo 30 ama 40 gaaraysa mararka qaarkood. hay-adda caafimaadka WHO waxay sheegtay inay caqabad tahay in waddanka aysan ka jirin diiwaan lagu qoro dadka dhintay iyo kuwa dhashaba, sidaasi darteedna aanay jirin diiwaan la garab dhigo tirooyinka dhimashada ee lasoo sheegay bilihii uu sida xoogan u faafaya xanuunka. waxaa kaloo jirta ayay sheegtay WHO in oksijiinta ay ahayd tan badbaadisay dad badan oo qabay xanuunka COVID-19 marka la barbar dhigo mishiinada ka shaqaysiiya habdhiska neefsashada ee ventilators. tusaale ahaan waxay sheegtay WHO inay falanqayn ku samaysay 163 kiis oo la geeyey cisbitaalka Martini, kuwaasi oo 60 ka mid ah ay dhinteen. waxay sheegtay WHO in